iyadoo shalayta galinkii dambe dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo laga afduubay wiil yar oo ardaya laguna magacaabo Cabdullaahi Cabdirasaaq Xabiib Faarax isla marhaantaasna ay afduubkiisa ka dambeeyeen kooxo burcadbadeed oo ku sugan koonfurta magaalada Gaalkacyo iyagoo afduubkoodana u sababeeyay kadib markii kooxo kale oo burcadbadeed oo ku sugan degmada Garaacad ay ka dhaceen lacag ka badan $100,000 ayaa maanta markii ugu horeysay waxa falkaasi ka hadlay wasaaradda waxbarashada ee maamulka Galmudug iyagoo dhaleecayn dushooga tuuray kooxihii falkaasi ka dambeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo dhammaantood goobjoog ka ahaa kulan maanta ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin falka lagu afduubay wiilkaasi yar oo 8 sano jir ahaa ayaa wasiirka waxbarashada Burhaan Warsame Cigaal ugu horeyn ka hadlay waxa uu tilmaamay in falkaasi lagu afduubay wiilkaasi yar uu ahaa mid wuxuushnimo ah kana baxsan diinta islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida isagoo dhanka kale laamaha ammaanka iyo waxgaradka Galmudug ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii uu wiilkaas yar xorriyadiisa u hanan lahaa inaan muujino dareenkeena waxbarasho ee ku aadan xuquuqda ardayga inuusan ardaygu lahayn qabiil in ardaygu uu yahay arday Soomaaliyeed in ilmo 8 jir ah ama da'diisu yar tahay oo qaangaar ahayn aan dambi loo qabsan karin ama lagu eedeyn karin in ay tahay in la tixgeliyo da'yarta waxbaranaysa Soomaaliyeed aysan mudnayn in dib loo geysto in waxa ayagu aysan geysan aysan u dhibaatoon ama aan lagu qabsan in xabsi loo dhigin in aan lagu dhibaateyn in waxbarashadooda laga joojin saad la socotiin waxa lagu jiraa nisf caamkii ama kala barka sanadsiyeedka 2011 oo ardaydu dhammaan ay u fadhiyaan imtixaankii oo gabagaba ah marka ilmo yar oo mustaqbal leh wax baranaya oo waxbarashada ku jira in dhibaato loo geysto la afduubo ma keenayso xal ma keenayso wax wanaagsan ma ahan wax oo sharciga islaamka iyo midka madaniga iyo darisnimada iyo bahda waxbarashada midna wax ku banaan ma ahan afduubka loola kacay Cabdullaahi Cabdirasaaq Xabiib Faarax ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa inta la xasuustay magaalada Gaalkacyo ka dhaca iyadoo arrintan ay si weyn loo anfariireen shacabka magaalada waxaana uu yahay midkii ugu horeeyay ee ka dhaxeeya burcadbadeeda isla marhaantaasna saameyn ku yeeshay bulshada gobolka Roble Maxamed Universal TV Gaalkacyo.